السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سؤال بعض أصحابتين أنجعلنا هاي ومركز نوحر كنالنا نعيم استوديو يدار خير ميديا. فضلا هذا نوع صبتهين على صاحب سي مقالد إيكوسو قارن شيخ محمد حسن أو كميده علماء وين عانك الدنيا الإسلامك ayaa qisada yaabka leh kusoo gudbiyay barnaamijka baxaya telefishinka Al-Rahman. Sheikh Mohammed Hassan wuxuu ku dhashay wadanka Masar waxaana uu kamid yahay culimada wadankaas ugu weyn ee caanka ah isla markaa dunida si weyn loogu yaqaano. nin u dhashay wadanka Ingiriiska oo diinta Islaamka ku soo galay hurdo inuu helo awgeed. ninka gaalka ahaa asagoo wadada socda ayuu arkay nin Islaam ah oo jiifo beer jardiimo ku taalo Ingiriiska asagoo hurdo macaan ku jiro. ninkan muslimka ah ayaa si degan gacmihiisa madaxa ka hoos mariyay iskana saxday isagoo hurdo macaan ku jiro. ninka gaalka ayaa arkay uuna la yaabay cabaar ayuu fiirinayay wuu u soo dhawaaday wuu ka kiciyay wuu weydiiyay adiga yaa tahay. ninkii muslimka ah ayaa dhahay aniga waxaan yahay Islaam. ninka gaalka ayaa dhahay Islaamka masaan ayaa u jiftaan. ninkii muslimka ah wuxuu dhahay haa Islaamka saan ayaa u jiftaa. ninka gaalka aad buu la yaabay wuxuu dhahay aniga hurdo noocan ayaan raadinayay. waxaan qaatay daawooyin fara badan ayaan qaatay si aan u helo hurdo. ninkii gaalka ahaa ayaa aaday xarun islaami ah waxaana halkaas uu ku dhawaaqay kelimada diinta Islaamka lagu soo galo ee shahaadateynka iyadoo halkaas lagu baray sida loo tukado. habeenkii ayuu seexday xarunta masjidka waxaana la tusiyay qaabka muslimiinta u seexdaan oo ah in dhanka midig loo seexdo ducooyina la aqriyo. intaa markii loo dhameeyay ayuu la dhacay hurdo macaan. dabadeed xilli waaga subax waxaa dhacday in loo kiciyo salaadii subax. markaasuu ku yiri maya ha ikicinina hurdo macaan ayaan haastay. oo wuxuu ka baqay inuu mar dambe hurdo helin hadduu kaco. laakiin raggii kicinayay ayaa ku yiri waad seexan doontaaye u kac salaada oo hadda waxaa la joogaa xilligii salaada. sidii ayuu ku kacay oo salaadii ku tukaday balse markii salaada uu tukaday ayuu damcay inuu seexdo. waxaa lagu yiri sug wax yar waxaa inoo dhiman inaan ducooyinkii subaxii aqrisano kadibna shuruuqda aan u fariisano kadib ayaad hurdo dheer seexanaysaa insha Allah. qisada ayuu sheekhu waxa uu ku soo afmeeray sida diinta qiimaha badan noogu leedahay oo ay sababtay hurdo oo qur ah in gaal uu ku soo markaas islaamo. halkaasna waxa inoo eg qisadeena maanta. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo taawa gambaleelka sidoo kale si fiigaree muuqaalkan oo la wadaag asxaabtaada si ay uga faa'iideystaan qisadan aadka u qiimaha badan. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.